qurbajoogta ka soo jeeda deegaanada waqooyigan gobolka galgaduud ee ku dhaqan wadamada Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa markii ugu horeysay ka qayb qaatay mashruuca lagu dhisayo garoonka Cabudwaaq oo bilowgii dhismihiisa ay si tabaruc ah ku bilaabeen dadka ku dhaqan gudaha magaalada Cabudwaaq waxaana kamid ahaa qurbajoogtaasi urur haween oo fadhigoodu yahay magaalada Ohio ee wadanka Mareykanka isla markaasna lagu magacaabo Somali American Women Foundation ayaa iyaguna dhankooda qayb libaax la ka qaatay qurbajoogta ayaa waxa ay lacagihii ay ugu tala galeen dhismaha airportka cusub ee magaalada Cabudwaaq ay ku soo direen gudiga dhismaha airportka gacanta ku haya gudiga dhismaha ayaa waxa ay maantay u fariisteen kulan ay uga warbixinayeen dhaqaalaha ka soo gaaray qurbajoogta waxaana kamid ahaa hadaladoodii waxaan u mahadnaqayaa TV-ga Somali Journal oo qayb aad u weyn nagala qaatay waxqabadka iyo dhismaha airportkan waqti fara badan siiyay dhaqaalaha naga soo gaaray qurbajoogta waxa ugu horeysay lacag 5,500 oo naga soo gaartay qurbajoogta UK beere ka kala joogaan ma carfi laakiin UK bay joogaan magaalada Birmingham bay joogaan gabdhaha 5,500 oo bilowgii ugu horeeyay airportka gabdhii ugu horeeyay ama qurbajoogta ugu horeysay oo soo dira garoonka lacag bay ahaayeen 5,500 waxa ku xigay Cabdiqani Shacali Diini oo soo diray lacag $10,000 oo jooga Ohio jooga Cabdiqani Shacali Diini wuxuu soo diray $10,000 waa shakhsi wakiilkiis $10,000 Cabdiqani waa soo diray waxa ku xigay Ohio samar labaad $30,000 waxa naga soo gaaray community Ohio $30,000 ay kamar labaad naga soo gaaray waxaan hormuud u ahaa gabdhaha hormuud u ahaa gabdhaha waxay soo gaarsiiyeen $30,000 waxa ku xigay magaalada Indiana waxa naga soo gaaray $8,000 community Indiana ee u dhashay deegaanka ay waxa naga soo gaaray $8,000 waxa ku xigay magaalada Birmingham community jooga ee diaspora u dhashay deegaankan ayagana waxa naga soo gaaray kulli guddi bay leeyihiin magacoodina noo sheegeen laakiin community guddigaas waxa naga soo gaaray $10,000 ayagana waxa naga soo gaaray $10,000 magaalada Birmingham waxa ku xigay nin ya Ali Duuro oo jooga magaalada Nairobi oo maqlay dhismaha airportka oo gaartay fariinta airportka wuxuu noo soo diray $1,000 ayuu noo soo diray oo noo soo diray $1,000 Ali Duuro naga soo gaaray lacagta dhammaan naga soo gaartay diaspora ama dadka qurbajoogta u dhashay deegaankan waa $64,500 gaara ugu mahadcelinayna Cabdiqani Shacali Diini oo jooga magaalada Ohio cariga Mareykanka iyo gabdhaha community oo jooga sida magaaladaas Ohio oo iyaguna si firfircoon oo wanaagsan lacagta noogu soo gudbiyay nololana soo xiriirayay markasta iyo gabdhaha jooga iyaguna magaalada Birmingham wadanka Ingiriiska iyo community-ga iyaguna lacagta ka soo ururiyay isla magaaladaas Birmingham oo si dadaal ah oo wanaagsan iyaguna nolol soo xiriirayay lacagta si degdeg ah nagu soo gaarsiiyay iyo Indiana oo iyaduna lacagta si fiican oo wanaagsan noo soo gaarsiisay dhinaca kalena lacag aruurin xoogan oo ku aadan dhismaha garoonka ayaa waxa ay ka socotaa gudaha magaalada Cabudwaaq oo ah magaalo ganacsi isla markaasna ay ka furan yihiin kambaniyo ganacsi oo ganacsigoodu uu ku xiran yahay wadanka dibadiisa waa kuwan qaar kamid ah ganacsatada magaalada Cabudwaaq oo dhankooda ka qayb qaadanaya dhismaha garoonka waxa taaka yimid guddigii u xilsaarnaa dhismaha airportka degmada Cabudwaaq waxay iga doonayeen deeqdii qayb ahaan anay u soo aaday waxaan ugu tabarucayaa dhismaha airportka dhisidiisa lacag $2,500 waxaan gidoonsiinayaa xubin kamid ah guddiga dhismaha airportka oo ah Mukhtar Macal Xuseen gidoonsiinayaa waxaan inta ku dari lahaa in waxa la yiraahdo dadka jira qurbaha ee deegaankan u dhashay Cabudwaaq rag iyo dumarba in ay ka soo qayb galaan airportka dhismihiisa صدقة جارية محمد صلاة محمد Somali Journal Cabudwaaq